asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu saaxiibayaal kusoo dhowaada mawduuceena maanta haddii aad ku cusub tahay kanaalka fadlan subscribe noo saar kuna soo biir kana mid noqo asxaabta ku xidhan janalka hoyga bulshada gambaleelkana furo si barnaamijyadu marka ay soo dhacaanba aad u noqotid daawadaha ugu horeeya. Charles Chaplin oo ahaa shactaroolihii ugu caansanaa sooyaalka shaleemooyinka ayaa wuxuu yidhi waagii aan yaraa ayaan maalin raacay aabbahay si aan u soo daawado bandhig filameed meel bannaan ah lagu bandhigayay. dabadeedna saf dheer ayaan u galnay si aan u goosanno tigidhka lagu goosanayay bandhig filameedkaasi. waxaanu hortayada ku aragnay aniga iyo aabbahay qoys ka kooban 6 carruur ah, hooyo iyo aabe, korkooduna ay ka muuqato saboolnimo aad u baahsan. taas waxaad ku garan kartaa dharkooda oo duug ahaa oo aan nadiif ahayn. carruurtu waxay ahaayeen qaar aad u faraxsan islamarkaana sii falanqaynaya bandhigga mar dhow bilaaban doona. aabbahood ayaa soo gaadhay daaqadii tigidhka laga goosanayay islamarkaana weydiiyey horjoogayaashii qiimaha lagu galaya bandhigga. markii uu horjoogihii daaqadda uga sheegay odaygii qiimihii ayuu odaygii isdhaaf bixiyey oo dhegta xaaskiisa u saaray inay lacagtani aad u badan tahay ayna geli karayn bandhiggan. intaasi markaa ay dhacday ayaan arkay aabbahay oo jeebkiisa ka soo saaraya lacag gaadhaysa $20 oo dhulkana ku tuuraya. dabadeed inta uu foorarsaday ayuu soo qaaday lacagtii ayuu soo jeediyey odaygii qoyska kuna yidhi mudane lacagtan adiga ayay kaa dhacday. odayga intuu aabbahay eegay isagoo ilmo ku soo taagan tahay ayuu yidhi mudane mahadsanid. markii ay qoyskii galeen bandhiggii ayuu aabbe gacanta isoo qabtay kadib oo uu soo jiiday safka daabuurka waayo ma uuna haysan wax lacag ah maadaama $20 uu siiyey qoyskii. muhiimadda dhacdadan laga bilaabo maalinkaas aad ayaan aabbahay ugu faanaa mowqifkuu ka qaatay dhacdadii uu $20 ku bixiyey annaguna aan bandhig filameedkii aanu kaga baaqanay waayo qoys sabool ah ayuu bandhig filameed ka bixiyey waayo isu nixistu waxay ka mid tahay qaybaha dareenka bulshada. daawadaha mawduucan daawanayow waxaan aaminsanahay in tarbiyaddu ay tahay ku dayasho aanay ahayn hebel ku dayo iyo heblaayo ku dayo. wuxuu yidhi aabbahay maalintaas casharka aan ka bartay mid maaha aan ka barto jaamacadaha iyo iskoolada. kaasina waxa uu ahaa shactiroolihii ugu caansanaa sooyaalka shaleemooyinka Charles Chaplin. intaas ayaan kusoo gabagabaynayaa daawada ee fi amaanillaah.